السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ninkan weli wuu furul khariinsanaa isagoo gacanta ka dhaawacan laguna sawiray qorigii uu watay markii gacanta lagu soo dhigay isaga iyo saaxiibkiis. maxay sameeyeen nimankan waa ciidan xooga dalka kuwa ka tirsan waana niman bambo ku tuuray ciidan kale oo kuwa dawladda ah kadibna rasaas oo uga qaaday. waa saxan tahay in badan oo idin kamid ah xalay waxa ay maqlaayeen haanta dheer halka la yiraahdo israasaaseen xoogan oo ka dhacaysa iyo jug laga maqlay. haddaba sidee wax u dhaceen? marka ugu horeysa inta aan sheekada guda galin nimankan hubaysan ee la qabtay laamaha amniga oo iskaashaday ayaa gacanta ku dhigay waxaana damacoodu uu ahaa inay dhibaato geystaan. haddii marka aad mahadinayso muwaadin ahaan shaqada ay laamaha amnigu qabteen dhiirigelinna waa mudan yihiin. dhiirigeli oo fariintooda ha gaarto dadka ay mudanta si ugu yaraan dadka habeenkii wareega ee laamaha amniga ah iyaga naftooda loo abaalmariyo. waayo dadka haddii la abaalmariyo oo la abaalgudo qofka habeenkii dhan soo jeeda ee raba inuu amniga ka shaqeeyo amnigii inuu kasii shaqeeyo wuu kusii dhiirana. laakiin marka wax qabadkiis dad kale ay meel ku tagaan ciidankaas habeenkii wareegaya ee dadka badbaadinaya ogow asaga marka dambe waa niyajaba. marka dhiirigelintiisa aan u taagana nala dhiirigeli. sidee wax u dhaceen? labadan nin waxaa lagu kala magacaabaa sida la yiraahdo ninka dhaawaca Cabdikariin Cabdiqaadir, kan kaleetana waxaa lagu sheegay in la yiraahdo Cabdullaahi Mascuud Cabdulle. waxaa dhacday marka nimankan oo hubaysan oo maraya haanta dheer aageeda meel mugdiya ku dhakan in ay iska hor imaadeen ciidan kuwa dawladda ah oo roonda ku jiray oo booliis militaar iyo sidoo kale sida la sheegay ciidan booliis ah oo isla socday oo roondada ay wadeen ujeedkeedu uu ahaa sidii ammaanka loo xaqiijin lahaa loogana hortagi lahaa haddii la arko koox doonaysa in dadka ay dhibaato gaarsiiso ha noqoto shabaabka ama ha noqdaan kuwa dhac u socda. markii la iska hor yimid waxaaba indhaha la isku saaray kadib ay go'aansadeen labadan nin in ciidanka ay bambo ku tuuraan sidoo kale tan difaac intay galaan ay xabad oo uga qaadaan. halkaasi waxa ka dhashay dhaawac soo gaaray nin askari ahaa oo la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka booliisiga militaar kaas oo isbitaalka la dhigay. waxyaabaha qaar ee aan helnay ee dadka gaarka ay noo soo direen waxaa ka ogaan kartaa telegramka cadeemaha yaala waxaana muuqda runtii ninkan hadda markii la qabtay ciidanku inay difaac adag galeen oo ay ninka isan tooganin madaxa ka tooganin balse ay ka dhaawaceen gacanta si ugu yaraan nolosha loogu qabto. labadan nin waxay iska ilaaliyeen in dhaawac culus oo halis gelin kara naftooda inay u geystaan iyaga oo weliba la xabadeynaya bambaanan lagu tuuray. mas-uuliyad ayay ciyaareen ciidanka isku dhafnaa ee ka shaqaynayay roondada waxaana taasi ay suuragelisay in labadan manaxayaal ah gacanta lagu soo dhigay. mid ka mid a ayaa haddaba dhaawacan sida u jeedid garabkana u duuban yahay meelaha kofarka saarana waa fahmi kartaa waxaa ka daadanaya dhiig. marka ninka laakiin weli waa ciil cunaa faruurta ayuu qabsanaa waxaana uu u qaadan leeyahay sida sahlan ee loo qabtay isaga oo hubaysnaa. nimankan isma dhiibin nimankan marnaba isma dhiibin oo ma rabin inay qoriga dhiibaan hase yeeshee runta iyo tabarta ayaa u keentay inay isdhiibaan markii ay arkeen in nin ka mid a askartu ay dhaawaceen sidoo kaleetana iyaguna aada looga tiro badan yahay oo mid laga dhaawacay waxay go-aan ku qaateen inay hubka iska dhiibaan balse koogii hore xabado ayay ooda ka qaadeen bambana waa tuureen. saraakiisha amniga qaarkood oo aan la xiriirnay si aan xog badan uga helno arrintan ilaa iyo hadda waa ay ka gaabsanayaan faahfaahin qoto dheer inay ka bixiyaan. laakiin dadka shacabka ah ee haanta dheer ilaa aagaas degan xalay oo dhan waxa ay maqlaayeen rasaas dhacaysay iyo sidoo kale jug xoogan oo mar yeertay taas oo dabcan dadka markii dambe ay fahmi waayeen meesha jiha ahaan laga jiro markii ay xilli dambe ay ahayd xogtana aad ay u adkayd in la helo isla markaasi. baryahan waxaa socda dagaal caadiya oo u dhexeeya ragga dhac geystayaasha ah iyo laamaha amniga. Somali Sudanese Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeena. waxa uu ku guuleystay markii afraad u xiriir abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeena. waxa ka howlgala dhaqaatiirta ugu fiican ee dalkeena Soomaaliya joogta. bukaankii tagaa wuu qancaya. hadda aad minaad naftaada rabto haddii kalena xaan kuugu aalhe. waayo waxaa hadda muuqata in laamaha amniga ay go-aan ku qaadanayaan si kasta oo ay uga hortagi karaan ama ugu yaraan sabab ugu noqon karaan in la soo gabagabeeyo qof magaalada jooga oo hubaysan in dad uu dhaco. luuqyada ayaa habeenkiina la isla galayaa oo hadda xilliga waxaan dhacay xilli saq dhexe ayay ahayd oo dambe waxaan taas ka turjumay in dadkan ay gaadayeen salaada subax inay isku dhakiyaan oo dadka subaxii soo jarmaadaya ama raba inay shaqooyinka u kala haan ama ardayda maaragtay rabta inay iskuulka aado xilli hore oo ciidanku ay inta badan hurdaan ama shiftiyada
shaqooyinka ay isbedelaan inay ka faa'iidaystaan laakiin habeenimo ayaaba lagu kala baxayba oo raadkoodii iyaga oo aan la heenin ilaahay uu tusay ciidankii iskana hor imaadeen waxaan rajaynaynaa marka in intaan keliya aysan ahaanin oo wax laga barto laabaha amniguna ay sabab u noqdaan in magaaladaas caasimadda oo dadka canshuurta laga qaadayo ay amni ku noolaadaan dhalinyarta habeenkii u taagan ee shaqaynaysa ee sidan oo kale ka mid ahna iyagana in la ogaado lana abaalmariyo waxqabadkooda. Asalaamu calaykum.